masjidkani waxa uu ku yaalaa dhanka bari ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan degmada kaaraan xaafadda wajeer agagaarka kawaanka bari masjidka al-shifa waxaa loo waqfay sayidi sheekh axmed bin idriis al-maghribi qadas allahu sirah oo ah sayidka ay u nisbe sheegtaan dariiqada axmadiya al-idrisiya ee ku kala firirsan daafaha caalamka iyada oo magaca al-shifa ee masjidka loogu magac daray uu ka mid yahay naanisaha sayidka dhismaha masjidka al-shifa waxa uu si rasmi ah u soo bilowday horraantii sannadkii 2017kii dhismaha masjidku waxa uu soo maray marxalado kala duwan waxaana si gaar ah isaga xil saaray laga soo bilaabo iibinta dhulka ilaa dhammaystirka masjidka jamaacada sheekh daa'uud culusow oo ka mid ah jamaacaadka islaamiga ah ee ugu waaweyn dalka uuna hogaamiyo caalimka weyn ee Soomaaliyeed sheekh Cusmaan sheekh Cumar sheekh daa'uud culusow oo ku magac dheer sheekh Cusmaan Xidig rabbi ha dhowre iyadoo dhismaha masjidka looga idan qaatay intii uu noolaa rabbi jannadii ha ka waraabiye hogaamiyihii dariiqada axmadiya al-idrisiya qaybta al-raxmaaniya sheekh cabdiraxiim sheekh cusmaan sheekh xasan macallin muumin sidoo kale waxaana soo jeedinta dhismaha masjidka iyo magac bixinta rabbi subxaanahu wa tacaala waafajiyey xaaji xuseen sheekh cumar sheekh daa'uud rabbi ha u naxariistee masjidkan markii la aas-aasayey meeshaan laga aas-aasay waxay ahayd meel qashin qub ah oo ilmaha iyo xaafadahuba ay ku soo dhaqaajiyaan waxyaalaha qashinka ah ee wasakhda ah ee guryaha laga soo qaado markaas ayaa ilaahay jamaacatu sheekh daa'uud fikirkeeda waxaa alla ku soo riday inay halkan masaajid ay ka aas-aasaan dhulkan ayay iibiyeen hadday gadeen bacdigeedna dhismihiiyay bilaabeen marxalado kala duwan ayuu soo maray dhismaha masjidku waxaa juhdi xoog badan oo xoog la ku bixiyey sheekh Cusmaan Xidig masjidkan dhismihiisa mararka qaarkood waxaa la arkayay shiikhu asoo weliba inta marada dhigtay qalabkii gacanta ku haya kana qayb qaadahaya masjidka dhismihiisii masjidka al-shifa oo ku fadhiya dhul baaxad weyn ayaa ka kooban dhisme 3 dabaq ah howlo loogu talagalay in lagu dhigo munaasabaadka diiniga ah xafiisyo maamul oo lagu maareeyo howlaha masjidka maktabad islaami ah qolal marti mawlac ama zaawiyo kushiino goobo lagu cunteeyo iyo qolal ay ku qalweeyaan dadka saalixiinta ah ee u go'ay cibaadada rabbi subxaanahu wa tacaala الله أكبر masjidka waxaa si rasmi ah loo daahfuray 2 bishii dulqaacda 1439kii kuna beegneed 15kii Juulaay 2018kii waxaana gudaha masjidka ka qabsoontay munaasabad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mashaayikh fara badan oo ka kala yimid gudaha dalka iyo caalamkaba waxa ay munaasabadda daahfurka ka jeediyeen kelimaad ku aadan masjidka sidoo kale waxaa munaasabadda qadka internetka uga qayb qaadanayay qaar ka mid ah hoggaanka dariiqada axmadiya al-idrisiya kana mid ah duriyadda sayidkeenna sheekh axmed bin idriis al-maghribi oo ku kala sugan dalalka suudaan sacuudi carabiya iyo masar waxaan leeyahay ajir allah ka siiyo sheekha iyo intii kala shaqaysay masaajidka inuu dhismo iyo markaskan masjid kaliya ma aha waa lagu soo wareejiyey mawdac uu leeyahay madraso uu leeyahay madbax uu leeyahay qolal oo
loogu talagalay dikriga uu leeyahay. سيدي أحمد ابن إدريس سدح أوديو كتير هذه شيخ داود بقدر أفر أوديو مركا ميان سيدي أحمد ابن إدريس حق لهن شو عثمان مسجد نوعا وكلا إنوريس meeshaan waxaa ka muuqato mujaahado ilaahayna asagaa ballan qaaday sheegay dadka ku jihaada diinkiisa inuu u hanuunihayo waddada khayrka ah waxaa noo muuqda marka sheekhayna jaliilka ah sheekh Cusmaan Xidig mujaahadadiis inay ka soo baxday maanta aad bay qiimo igu leedahay Sayyidi Axmed bin Idriis masjid munaasabad looga dhigay oo magaciisa lagu xusayo inaan ka soo qayb galo ayadoo masjidkuna uu yahay markas xarun diimeed uu yahay jaamic oo jaamacad loogu talagalay inuu dad soo saaro uu yahay una aasaasay Sayyidi Sheekh Cusmaan Xidig masjidkana waa masjid waxbarasho loogu talagalay sidii dadkii hore oo kale a'imadeena waxay ka soo bixi jireen masaajidada ay ka soo baxayeen imaam Shaafici wuxuu ka soo takharujay masaajidada imaam Maalik imaam Abu Hanifa a'imadeena dhan waxay ka soo takharujeen masaajidada masjidkana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa tabaaraka wa tacaala inuu ka dhigo meel ducaada iyo culimada ay ka soo takharujaan هذا هو بيهاي بوالو بلاوي إلهي إنه قرب كودي قالوا شيخين شيخ عثمان حدق إيا أنت هوش على وده إلهي قرب كودي إنه قالوا أيان إلهي ويدي سنة سبحانه وتعالى وحوي المسجد لو تلقى وحي النبي محمد إن لقنا عليه صلى الله عليه وسلم ست تطبيق علمي يا عمل يا تربية يا حفظ بحبارسن سيحبارسن طريقة دين الإسلام كا هي تربية الذي سوى كان يجي الشيخ الأكبر العالم النحرير طوله الله عمره الشيخ عثمان بن الشيخ عمر بن حاج داود ومن معه من أحبابنا الكرام أتم وحول ما يسترى أبتام يلا مسح مقيم قفك النجاة مسجد تميلة in ka badan 300 oo arday oo da'yar ah ayaa iminka ku barta masjidka funuunta kala duwan ee shariicada islaamka iyadoo nidaamka daraasadu u baxdo loo habeeyay 3 heer hoose dhexe iyo sare saddexdani heer ayaa lagu qaybiyay ilaa iyo 19 fanni oo kamid ah funuunta kala duwan ee shariicada islaamka oo baraxla iyadoo loo ekaysiiyay qaabka waxbarashada nidaamiga ah marxaladda hoose ayaa ka kooban ilaa 17 kitaab marxaladda dhexe ayaa iyana ka kooban ilaa iyo 27 kitaab halka marxaladda saddexaadna ay ku eg yihiin ilaa 34 kitaab waxa ardayda waajib looga dhigaa inay dusha ka xifdiyaan qaar ka mid ah kutubta ku eg marxalad kasta waxa xusid mudan in ardayda laga qaado imtixaano oo aan loo ogolaanin inay marxalad ka gudbaan iyaga oo aan marin imtixaanka waxaana la guddoonsiiyaa ardayda imtixaanka ku baasta shahaadooyin waxaa jira muqarrar nidaamsan oo loogu talagalay in lagu socdo muqarrarkaasi waxaan u qaybinay ama loogu talagalay in loo qaybiyo waxbarashada nidaamiga ah sideeda oo kale in laga dhigo qaybo kala tiib ah oo qayba mar la galayo lagana baxayo waxaan marka funuuntan u qaybinay sida ay u kala yar tahay u kala weyn tahay marxaladaha ardaygu uu u baahan yahay saa darteeda waxaan u samaynay maraaxil ah ibtidaa'i icdaadi iyo thaanawi waxaa ka mid a markaan wax yar idinkaga taabto marxaladda ibtidaa'iga kutubteeda safiinatu najaa iyo safiinatu salaadood isku taqaanin inay isku rakiban yihiin 40 nawaawi kitaabka la yiraahdo bidaayatu alhidaaya ajruumiyada oo kale abi jamra abu shujaac kutubta noocaas ahaa kamida qaybta ibtidaa'iga kutubta laga helo
qaybta marxaladda icdaadiga markaan soo aado iyaduna saddexay u qaybsantaa qayb walbana waxay leedahay kutub aad u fara badan waxaa ka mid a sharaxa ibnu qaasinka riyaad الصaalixiin oo kale oo kutub muhimahoo la yaqaano macruufa ah laamiyaة الأfcaal buluuq الmaraam oo kaleetood anwaar الmasaalik kutub noocaas aha isagana ka mida saddexda marxalo uu yahay marxalaة الإcdaadi marxalaة الثaanawiya markii aan tagno saddex fadre ay u qaybsamaysaa fadro kasta waxaa ku jira kutub fara badan oo muhim ah waxaa ka mid noqon kara tafsiirka jalaaleynka waxaa ka mid noqon karaa kitaabka la yihahda الtajriid الصariix waxaa ka mid a الtaaj waxaa ka mid a alfiyaة ibnu malik minhaaj الdaalibiin oo minhaajkii fikiga ahay ah xataa minhaaj الcaabidiinkii tasawufka ahay waa ka mid kutub saasahoo aad u waaweyn oo muhimana waxay ku jirtaa thaanawiga masjidkana muqararka sidaa isugu dubaridan oo u habaysan ayaa lagu daraaseeyaa rag iyo dumarna loo akhriyaa insha allahu tacaala waxaana aad u rajaynaynaa muqararkan min awalihi ilaa aakhirihi ardaygii si fiican u barto u mara inuu noqon doono axad mas-uuliyad hogaamiyad diineed inuu noqon karo mas-uuliyad dad waxbaridna loo aamini karayo sidoo kale masjidku waxa uu leeyahay dugsi quraan wiilal iyo gabdho carruur isugu jirta lagu baro tajwiidka qur-aanka kariimka iyo weliba farqurxinta waxaana barayaalka ah macallimiin jaamiciyiin ah oo ku takhasusay cilmiga tajwiidka iyo qiraa'aadka waxaana si gaar ah ardayda loo baraa qirada abiicamarka biriwaayat adduuri oo ah qirada soomaalidu inta badan bartaan iyadoo aan laga tegaynin qiraa'aadka kale ardayda masjidka wax ka barata waxaa loo sameeyaa cunto maalinle ah maadaama xilliga daraasadu uu ka soo bilaabmayo 7 subaxnimo gaarayana ilaa 5 galabnimo iyadoo looga gol leeyahay in daraasadda maalinlaha ah ee masjidka ka socota uusan ku imaanin hakad ama kala go' masjidka al-shifaa waxaa lagu qabtaa munaasabaad diini ah oo ay ka mid yihiin xuska suubanaheenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee oo sannad walba lagu dhigo waxaana xusid mudan in munaasabaadkaasi ay ka soo qayb galaan marka laga yimaado culammaa'udiinka waaweyn ee soomaaliyeed mashaa'ikh iyo wufuud ka timaada daafaha caalamka masaajidka markii la dhisay kabacdii uu howlgalay waxaa noo yimiday oo masaajidka dartiisa u yimiday culummo ka timiday caalamka waxaana ka mid ahay sheekh la yidhaha sheekh cabdulwahaab attaazi oo ah sheekha hogaamiya dariiqada idriisiyada ee caalamka oo dhan calaa mustawa alcaalam hogaamiya iyo culummo la socota waxay naga soo booqdeen xagga suudaan waxaa kaloo ka mid ah culummada soo booqatay masaajidka sheekh la yidhaha shariif maxamed cajaan oo turkiya ka yimiday ahna ra'iisu akadeemiyati dariiqati suufiyati fi lcaalam asiguna maaragta waa soo booqday waxaa kaloo soo booqdo booqasho noogu yimid sheekh cibraan oo asiguna koonfur afrika ka yimiday dhismaha mashruuca masjidka ayaa weli socda waxaana jira dhulal jaamacadu dhowaan iibisay oo la qorshaynayo in laga dhiso macaahid jaamacado iyo dhismayaal kale waxaana albaabadu u furan yihiin qof kasta oo muslim ah oo doonaya inuu ka qayb qaato mashruucan عبيدكم حبيبي برؤية وجهكم نور البصائر
متى تسمع لحضرتكم دخولا لعبد صار كالأيمان حير صلاة مع سلام الله ترى صلاة مع سلام الله ترى صلاة مع سلام الله ترى على خير الخير والأباطل وذكركم ومدحكم ثناكم قداء العاشقين ذوي المفاخر وتنزل رحمة الرحمن حقا بذكر الصالحين من